السلام عليكم. سكور. موزيو بروفيسور كم ساعة؟ السلام عليكم لول. الحمد لله. سوقت سنة عليكم. يا. سوقت. سكور. هذا هو وانا سوق هذا والله نور ويوي نور الدين. نواد. محمد علي وعيسى ما تلاقي لنا عيب إتوس محمد علي وعيسى وعاوية عروميو إلونا قيرك وعيسى عريشك قارن سوق الشي محمد علي وعيسى عرفكم إيدك الشي محمد علي وعيسى أفرقال التوعي كنت محمد علي وكوعان صومالي راعي عيد محمد علي وكوعان عبادة يا قلبي أكل محمد علي وكوعان عدوريات مرعي سيدو محمد علي وكوعان وحرص يا عرولان محمد علي وكوعان أفر والحق عينكوك محمد علي وعيسى ما تلاقي لنا عين إتوس محمد علي وعيسى وعاوية عروميو إلونا قيرك وعيسى عريشكي قارن سوع الشي محمد علي وعيسى عرفكم إيدك الشي محمد علي وعيسى أفكار التوعي كنت محمد علي وكوعان صومالي راعي عيد محمد علي وكوعان عبادة يا قلبي أقول محمد علي وكوعان عدوريات مرعي سيدو محمد علي وكوعان وحرص يا عرولان
waxaan guda galaynaa xafladeena afuraneena mar walba sidaan camal meel iskugu yimaado madaxda reer Oslo inay soo dhaweyso waa ku caan inta barnaamijkeena guda galin iyo ambassadorka iyo ka hadalkiisa waxaan jecelnahay marka hore quraanka kariimka inaan ku furano waxaan u yeerayaa walaalkay maxamuud cabdiraxmaan si halkan quraanka kariimka noogu furo بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله maan aad u mahadsan yahay wax badan ay noo soo socdo oo qaar aan idin sii qarinayno sida wada ogsoonahay maanta waa maalin weyn oo aan ku soo dhaweynayno xaflad qiimo badan ambassadorkii hore ee Soomaaliya u fadhi jiray waddanka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ambassador Maxamed Ali Nuur America taariikhdiisa inta ma lagu soo koobi karo waxaan jecelahay in yar oo furitaan ah magaca guddiga inaan siiyo xafladda si aan ugu furo walaalkeen Saciid Daami aan soo dhaweyno السلام عليكم ورحمة الله. وأنا ما أدري يا دمان. sida sharafta leh ee aad uga soo gasheen meeshaan uga soo qayb gasheen waxaa la yidhi lii istaajiyey xafladda fur ee hadal layma dhihin marka waa furayaa xafladdu waa furan tahay ku soo dhowaaw safiir xafladdan quruxda badan ee Soomaaliya waxba ka maqnayn inta Soomaali ay u kala baxdo halkaas kugu soo dhaweynaysa sharafta ay kugu qabteen xafladdaas waa ku idin yihiin dhammaanta Soomaaliya oo dhan kusoo dhawaad waa soo furantahay yaasha markaan mar haddii suldaan la bilaabo suldaanada waa la isku wada xijinayaa suldaan Bashiir Geelle ayaa u yeerayaa inaa soo dhaweysaan asigana وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم ومن تبع بإحسانه إلى يوم الدين. أما بعد إخوتي وأخواتي في العقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت ومالين شمعاء وسيد الأيام نصيب حوية شيء أنبسطركم هنا يدات كان رئي أوسلو مالين شمعاء وتاريخ الميلادي بشا أي تهيشن بشي لحال لابد كن يشن يتوانك إنه هل كان كسو دوينو رئي أوسلو هدان هاي مرتب بدن وكلا دودوين وقبل كلا تمد يكون الدولة السنترال وقت الكوميلجاك هي يمان تبع تن ما أنت تاجنبه أنت بوين ويمادين ودن كان وحنا الهداء يدعنا لنا هاي إنه وقعمها إسهاي سنة أي نسوي الدوينه إنه وحي نقد أنت وضع عسنه إنه أروس كيسوون مادنه إنه يسوون مادنه هذا على إنه هي واحد استوى مناسبات وإنه عسكر يسوون مادنه وإنه كل كلام تاسنا وحاجة لين وكان في عن أديه وضياشينا وأن هي قبيل منه كل شيء. سألتهم شرطة الصومالية بيش ودونوا هكي مادو أنا بشير قيل له تاني. سببته شرطة الصومالية بنقوها وبيعمل. على كشرطة الجيش اللي عليها وبيعمل. معناها هوية هي ما نقلنا. وحويا ومدني صومالي دي هي كانت تجمس وحان باغنا بدو ديريا او ايغو هوريا هادلكيga كليلka shanaad buuqa ka dhacay iyo dagaalka in la joojiyo inta magacayga iyo muuqayga taqaana Bashiir Maxamed Geelle ee kiliilka ku nooli way badan tahay waxaan codsanayaa khilaafka meesha ka dhacay reserve ee dhulkaas Soomaali galbeed ama kiliilka waa meesha anigu aan ku dhashay in ku barbaaray gobolada dhexe dadka degan iyo magaalo madaxda gobolada dhexe
dhuusan mareebna waa meeshii aan ku barbaaray ee aan ka halgamay ee aan ka dumiyey dowladdii Xayla Salaase iyo tii dhergiga ahayd ee ka dambeysay aan ka dumiyey ma ayna haysteen maanta haddaanan dhiigayaga hurin nimanka maanta haystay EPDRF jaaliska ay maanta haystaan ma ayna haysteen waxayna haysteen baasaboorro Soomaaliyeed oo ma la samaami waa la ogaa waa kii wasaaradda arrimaha dibadda anigoo shaqaale ka ah laga maamuli jiray xafiiska danaha Soomaaliya waqtiga aan waan xafiiska personalka ahay waxa loo baahan yahay in Itoobiyadan cusub iyo Soomaaliyadan cusub ee federaalkiihi ay nabad ka wada shaqeeyaan inay iskaashadaan inaynan gacmo shisheeyna soo dhaxgelin inaan la isku keendirin dadka Soomaalida ah ee kililka degan iyo dadka Soomaalida ee Soomaali weyn calankii ee maabkii sabanka degan waa dad walaala dadka ina fidii degan iyo dadkii maabka sabanka degan waa dad walaala dadkii isku darsamay 60kii ee British Somaliland iyo Soomaali iyo Italian colony ee midoobay waa dad walaala ma kala tagayno kala tagi mayno walaalaynu nahay diinta inaga dhaxaysa midabka inaga dhaxeeya dhaqanka inaga dhaxeeya ma kala tagin wixii xumaana aan iska saarno waxaan codsanayaa cid kasta oo labada daraf way garanayaan labada gruuba waxaan codsanayaa anigoo ah Bashiir Sheekh Maxamed Geelle inaad joojisaan waxaan magacaabaynaa guddi qurba joog ah oo arrimaha ku dhaqaaqa oo sahaydooda aanu siino oo dadka kala qaboojiyo looda dhinacba tagana galabta ayaan wixii laga bilaabo ku dhaqaaqaynaa aniga ayaan hogaaminayo wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxay ahayd meel lagu faano oo Afrika ay tiraahdo sida wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ma u dhaqataan wasaaradaha Soomaalida wasaaradaha Afrika sida safaaradaha Soomaaliya ma u dhaqataan safaaradaha kale ee Afrika sababtoo ah safaarad waliba inta badan annaka lahayn guriga waxaan nahay dawladda kaliya ee safaaradda ay ku jirta ayadu ay leedahay inta ugu badan Masar baan lahayn Boom baan lahayn waxaan lahayn hadii aan France baan lahayn waxaan lahayn Nairobi baan lahayn Addis Ababa baan lahayn lama kool kar Senegal oo ogtiin intay leedahay ayaanu lahayn guriga waxaan leenahay wuxuu iga farxiyay inay wasaaraddu sideedii u shaqeyso waan weydiiyay sideedii bay u shaqeysaa waxaan ku soo khatimayaa in yaro suugaan inta iga raali ahaa soo kordhiyay wiilku inta yartay suugaanta wax weey dadis jacel xigal wadaadago abidis doonaya kala duudeeda kaanadii wata dagi soo haray xageemanka doona ahliyay daacada tahay ka ololiyana gushido duxataada reebay ya dumiyay daarahan dhisna dilalyada keenay horta yaa u daacada shacbiga dhigalaga daj wa su'aal daaweyne jawaab diranaga siya dad nasiibku daadihiinayaan cidi u diidayna ibdii ilaahay baxsha lagu daaga meele dawlad wacan iniyaan helaan oo daniinayay أنستين دولكي حنبا ديلي نفتيسي هدي كالي دوغا غانا عونيداني يالكذا هدي كالي دوغا غانا عونيداني inkastoo aan ka cudur daaranayo siyaasadda in xoogaa lagu sii fogaanin xafladeedana ay tahay mid soo dhaweyn ah marti culus oo inoo joogto oo inooga timid waddan fog waxaan jeclaa mar kale iyadoo martida ka codsanayo waqtiga inay soo koobaan بشان دقيقة يا لو تلقى خطبة دكتور اللون الجالسيو مركان وحاجة أنا سود وياه مثل كده ضياش الصومالية يكون الوضع كنوربي قالها مجال أوسلو عبد الرحمن سيرا يسود وينا يا مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرتشرفته صحافة كل جدسن قولها الصومالية أقوياء كعلماء وسلامتي waxaan filayaa kaftan bahagaate shaqada qabaabanta laakiin waa ka soo yareeyaan dad maadaamaday yahay maxamed cali nur America ereygaas aan ku hormariya inta soo jawaabta uu bixin baan xoogaa daraad galana meel ma ka sheegan maray
oo ninka siyaasiga ama aqoon-yahanka taariikhda inoo sheegay hadda Maraykan maaha wiilku hadda wuxuu yiri waa Soomaali weeye waa garaysa Maxamed Cali Nuur Ameerika ما نويدو أيربوركا أو ربدا أي ما ترمعوش بقبع والله بحليو كل الدور هرت أدو حلو أمباسور كل سيولية مرة أيضا ويدر ويمد مرة أيضا هو تي سوالو وكالات تابي هل كانوا حاجة رئيسا مركا وهدينا سوالو وانا سيونا ما أنت أيربوركا الروب ميرا كبروي ما ترواكا معوش تقبع وعمل هذا هرت تاني بس كعمل فعله أنت مركا هو جدبه magacu wuxuu ku baxay oo aan weydiiyay aan xoogaa taas weelay sheekaysanay bisha saddexaadii aabisa magac horta ah isaga ma oo wuxuu soo jiray kambarigi loo jiray Roach iyo single lay qoladii petrolka baari jiray dalkeena koofeeda birta arwaaqaasha dabagaab loo aqaanay magacu saas horta ku baxay saayir oo la socotaan oo ay door wali ka waa Mareykan wanaga daayo horta basaa inta ana idin burburay waxaa kaloo aan leeyahay maxamed cali hadda isweydiin bayna wuxuu qabtay intaynu Norway joognay markhaatiba idinku ka tihiin beenina la sheegay waa xafladihii ugu qurux badnaa oo dhacay 3 bisha oo 4 bisha oo maato 5 dhacaysa oo airport ka dhacay yaani waxa iska imaan kara ma prime minister Norway wala socota Laba Cabdi Wali xogaa ay tahay inuu meel hool la galay maca salaam niri وتهبل ما حيتر كل عيسى مركز الدحاد إريتاي ويعني dadku xiisa qabo waxay ku teestaasu qof wax qabadka saway ma aha wax iska yimaada taariikhda shay marxalada taagti waa marxalada ay korkati marka wuxuu qabtay horena uu sheelay ka faaleyn weyno dadkii qaxootiga ugu wadaadeen Afrika ugu badan dhadhaab xardheer intaad garaysaa dhadhaab inta jeeru tagay wadadka noo daayay teen asoo hurulay inta jeer aragtay masii wax ka horeey laba yaqaan iyo qolada wax dhigi jiray hay rabdaan wax way isbiqiiqaya marka taas waxa weeye waa nooc kamid ah wadaynimada ma wax qof iska leeyahay waa nolosha taariikhda aan sheegaysa ama madaxweynaha soo baro ama barnaamij ha noqdo ama cid kasta maray taariikhdu marka been ma sheegto قرآن باكتها آخرك وينجا أنت هذا الهينا سفارة الصومالي سفارة هو ويه كيف هذا بس أمباشتور وها من رواقته من روا سوعلي ويش دفرت ودينا بدك إيه حلو وحلك ها مركب بها وحلا مقعيسين كرو ووح ما ارتقف كواسن وحنا كفى يزني هذا الكبدن بيو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa lagu sii jiraa in la siiyo odayaasha markaan waxaan jeclahay inaan soo ku yeero Sultan Cabdullaahi Cusmaan asna si oo noogu soo koobo sida Cabdiraxmaan Sayar noogu soo koobo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو هوري waxaan salaamayaa dhammaan dadka jooga meeshaan oo reer Oslo waan salaamayaa anigu dumar iyo haween iyo rag malihi reer Oslo waa reer Oslo marka dhammaantood waxaan salaamayaa xildhibaanada reer Oslo iyo kuwa kale oo naqaano oo ayagana meesha anigu aan deganahay ka yimid oo way nala jooga ayagana waa salaamaya waxaan u malay anigu amaanta maxamed baan u istaagay iyo soo dhaweynta maxaa jira qaxootigii baan ahaa annagoo ka kuma joogna oo nala qalo oo gurigayga inta loo soo dhacay wiilkan iyo 10 jira turgaana qaawan ay qashay يونوي ما نروي الحلكي بالغ قاعد مركي لي وانا سبحان الله ويا له مكان مريكا كل شيء قاعد لو ديبتو بعد ما لي دولته وحوي بيسوق ايوه هذا لي ما لكن واجبك محمد لما مارين واجبك سي ما هي ان الحل لغا قادو waxay ahayd in xilal badan la siiyo waxa soo maleeyay way boos raay doorashaasi ummadda reer Oslo waa soo dhaweynaysa
kuwa kalena waa ku soo dhaweynaya taariikhduna waa ku sheegaysaa hadaali asalaamu calaykum waraxmatullahi markaan haddii aan dhinaca kale u dhigno waxaan jecelahay inaan Para
هجفويو ولا ما هراني أغلي وحقوقه ولا ما هراني أغلي وحقوقه هيبل وحا كل إذاعي تلقاك هويو هيبل وحا كل إذاعي تلقاك هويو ولا لما قراني أغلي وحده قبو ولا لما قراني أغلي وحده قبو أنتي معا وابدا ويلغا أولاني هلايو أنتي معا وابدا ويلغا أولاني هلايو أنتي معا وابدا ويلغا أولاني هلايو أنتي معا وابدا marka ninka dhalinyarada ayaa u yeeraya in ay la soo dhaweysanayaan jecelahay cabdifataax Cabbaas Cali السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore waxaan salaamayaa marti sharafta isugu timi shirka rag iyo dumarba waxaan marka hore si gaar ah u soo dhaweynayaa ambassadorkii hore ee Soomaaliya u fadhiyay dalka Kenya mudane Maxamed Cali Nuur America waxaan ku leeyahay soo dhawow ku soo dhawow Norway welcome to Norway عمرنا يا نرويج وانا بطي هذا أسبوع بعد نرجع كا مركا welcome to Norway waxaan kale aad u salaamayaa rag odayaasha ah halkan isugu yimi simada odayaasha xildhibaanada Baasha Muuse Cabsaaq Sameyne luul halkan ayada joogta dadka ugu caansan Oslo oo mar walba u taagan Soomaalinimada waxaan salaamayaa qoraaga weyn ee adduunyada ku weyn oo Soomaalida kaliya aan ahayn qoraa caan ah adduunka caanka Nuurdiin Faarax oo aan chance u helnay maanta inuu nagala soo qayb galo soo dhaweynta Maxamed Cali Nuur America waxa kale oo halkan jooga oo goobjoog ka qorayaal kale waxa jooga saaxiibkii Cabdicasiis Xildhibaan oo halkan fadhiya reer Ingiriis ah ku soo dhawaada Norway haddaan intaas ku soo kaga baxo soo dhaweynta mudane ambassador waxaan ku leeyahay ayaa ka qaatay dhalashada Norwejiga dadkaas oo 12 ku gaaraya ayaa haysta dhalashada Norwejiga waxaa hadda Oslo kaliya golaha deegaanka noo fadhiya 3 xildhibaan oo baasha hadda in kala fadhiyo waxaan rajaynaynaa sanadkan inaanu cadar kala dhigno oo aanu si weyn ugu soo baxno golaha deegaanka aan ka qayb qaadano doorashooyinka aad ayaana Soomaalida loogu amaanay habka ay dhalinyaradu uga qayb qaadato doorashooyinka Norway mar labaadna waxaan xasuusinayaa inaad aad uga qayb qaadataan doorashada aan soo celisaan awoodii xisbiga shaqaalaha oo maanta baasha halkan kala joogo waxaan u mahadnaqayaa guddiga soo abaabulay xafladda Saciid Daamay iyo akhyaarta kale Cabdifatax la jeclo iyo rag kale waxaan leeyahay aad baad ugu mahadsantihiin abaabulkii aad samayseen oo aad xafladdan ku soo bandhigteen waxaa kaloo aan in xasuusinayaa dadka Norway ama Soomaalida Norway halkan joogta waxay u taagan yihiin inay wax ka qabtaan dalka Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka tusaale ahaan wuxuu ka tagay Norway waa nin haysta dhalashada Norway wasiirka ganacsiga Cabdiraxmaan waa wasiirka halkan reer Norway isna yahay dad badan oo kale oo aan xasuusnayn ayaa xilal ka haya dawladda dhexe iyo maamulada gobolada labadaba marka mar walba reer Norway waxay u taagan yihiin inay dalka wax ku soo celiyaan oo wax u qabtaan waxaan anigoo soo koobiyay waqtiga gaaban awgiis waxaan ku leeyahay mudane ambassador ku soo dhawow dalka Norway waan mahadsantiin وينيا فرح سفري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرتوا ليس عبية فبركة بيروح يقول عاي. وحنفلا يا ماشان عاوة لما كلاهرين وحين كقابن تاعي لما مناسبات أو أنتي مناسبات ده وحي كقابن تاعي سلوين تا بسطرك وحالين عيسى فديو جوجا قراقي وينا عانك هاي شرفك مدة الصومالية كرو قاضي اللي يقينا نور الدين فارع هو ده فرحان قاري إنه تاعي نقل حفلة دان وعنك سيجار وسلامة يا دمان غيبها كل دون برشدة وقت جود قال يسوق لي يسوق ويان سعادة السفير محمد علي أمريكا ومرقاتي لقاك عاي ومد الموت وشهداء الله في الأرض عاوين ونوان أكسنه هي مرقاتي كعين وأنا دريم كرت عددك كسر قيب قال قيبيس وقت قال يسوق لي وأسول وين هنا إنكسر هذا الكؤاد وبطي ونجعل لنا هنا كان يجي سنة واربعين تايسجا فرحت بين نوتاي إن أسول وينه واربعين تأكلون وانسي ولا له هريسي كلمة دي ما عندنا غير جديان هنا والله خبا أسول وين هنا أنا وقال عستان هايو هذا البلد ما نقال واكلت كلا تورست عن نقال مركي هذا الكواكلاتور هنا وسوكو بينا مناسبتنا مقام كان عاون كل مقام له مقال أردتها عاون وحي كساب ستة سلوينتا خارج الموضوع بدنا حتى كجلينا أنا مجرته محمد علي أنتي يقدر هذا ونكبر هذا تي في واحد كفر سوي يقول لي هاي نبهد لي قبل ديسي قبل يرد علي لعنا كان عاي اللي قاعد حمر نكي جوجا يغاني بركة بلاهد عقب بركة marka ninkii yaa u yimid isagoo meel fadhiyo wuxuu yiri wariyo waxa la yiraahdaa hebel hebel maxaa macallin ma tahay ha inuu gabadhaadiina waa diray lacagtii xilligaa joogtana waa qaatay marka niyo inuu dacafisaan raba ninkaan oo inay la soo saaro cafi marka dacafiska wallahi aniga arintaasi waxay ugu reebtay wallahi ma taqaan xasiina gooniyo in ummadda Soomaaliyeed nin naftiisii gooyay ubadkiisii beerkiisii qof gooyo u yimiday كسو كاسنا عيني ونحسنه إلا عفية مضر هذا الصومالي ما أنت وقرأ كرتاننا قبيل نعيرنا ريهبل ونعبيا ريهبل كانوا وانكر شو نعبيا ونعيا مركن نكسك أنت هلا إجيستي حلنا جزاكم الله عنا خير الله كجزاء مريض صبر كرتبي تنكلا قف حل إن لقى هذا ومهم واحد وهالشو عيني وريكتا مد إسقوا كلام الهرية دتك سيلبوا أجانا عدان الامتحانين ونحل لقى قادم ونحلوا ديبين إذا ما قرأ كرت دتك وناكسر مركز هدي لقى قاده هدي والدنيا دي ماشي كسيوان وحي كلام عن قوة كرتنا وقوانا يساد دل كأنه ما تروحوا بهاي كنتي النفط الله هي قونية اللي صنعها واللي إلهه دل كي وقرنا يساد ماشي مريض هذا أنا سبب تمنخا واتي ونا نقول عاي نكستواج عليه مصلحتنا ما قاري كرنا مركب وحنا كعب سنة عدوانين تا واللسان كوذا إني أوه غربحان دتك كلوا حقنا أوه غربحان كابيالنا بدأت إنا وذا نخون عرفتها سنة وذا قتلنا دلكيني وابا بعيدا لعنا من الله كرنا رافعا وما دي ودم لعنا نبي جاي دي ما كمر كي لقى بحنا يري كام بحنا من كل مركينا نقول كي كهجرنا كفر عنا ذلك كلام وحوا قلب كان جدي كنا الصومالي ودرين كرتاين نود كي كخوصة أنا والبنينا المدوفنا سعرنا واسعدا لكن جهلنا كلا ودقيا مركا وحكينا يسمى مطمئنة معها قلبي إنه ما فضيه مركا أنا أهجر بحنا دبت وين تابتي لمسيس الحاجة ما تينا أهجر بحنا أنا جا أربني قدام هذا وأكو قرعسني كسميني كرم محمد إذا نرجع وحنا رجني إنهم لقونا ولاده ده وحكو برتي وعرفنا ماشي إهانة ذي كلا كل ماذا تنكروا عن ربينا كو قتم وحواي والكل يبي أنت واجبنا ما أنت هدان معي أجنبية محمد صالح هدنا وجرت عيسى بالعلمان تاريخ دون فرصة ضدك أجنبية كبتاليس تدم معه قفك أجنبية ضدك ودك كل شيء هي قف نك ودنية أو إنترستيجا أو جناحسرة أو حقوقها أو شرعية هي أنفع إسرائيل أنا هدي قصة marka aynagu hadaan Soomaalina taagteena
kasta yaroo kuushka iyo wixii aan cayarsan jirnay ayaa ku filannahay marka waxaan idinka codsanaynaa inaan xisbiga shaqaalaha inaan xoog saarno u codeyno dadka maanta u socdo oo candidate-ka u ah inaan codkeena isugu geyno intaasaan codsanaa magaca guddiga ganacsatada reer Norway guud ahaan ayuu u hadlay ambassadorkana wuu soo dhaweeyay markaan waxaa u yeerayaa nin marti noo ah suuragal ay u noqotay inuu wax nagala soo dhaweeyo ambassadorka caawa martida noo ah waa nin Soomaaliyeed waa nin qoraa ah waa nin siyaasi ah waa nin wax badan og waxaan rajeynayaa qoraagaasna ay la soo dhaweysaan waa Cabdicasiis Xildhibaan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نعبده ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يهد الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا وحي إلى التهي ضد بدن هنا إلا ما هو الباهنته كما قلنا وكذا يستين توضع عن كقريب قلي لكن أنا القرآن أخرنا هنا ينعكس لكن caawa dadka oo dhan waxaan leeyahay xaalad kasta waa ka tarjumi karnaa horta sidaas ogaada salaankan gacaltooyo kadib waxaan jecelahay anigoon hadalka idinku dheeraynin waxaan ka mid ahaa dadkii loo tababaray dadka inay la hadlaan kuma jirin qolooyinka dadka inay u heesaan loo tababaray laakiin caawa idin heesi lahaa waxaan jecelahay inaan ammaan iyo mahad ballaaran halkan uga jeediyo dhowr qof oo suurto geliyey joogitaankayga magaalada Oslo fursadii siiyey inaan wax idinkala soo dhaweeyo idinla qaybsado farxadda aad ku soo dhaweynaysaan ambassadorkii hore ama danjirihii Soomaaliya u fadhin jiray magaalada Nairobi ee dalka Kenya His Excellency Maxamed Cali Nuur America waxay la tahay sida aniga oo aan ku talagelin marka doodaha aan tagayo qalabkayga iyo hubkayga horaan u qaataa si Soomaalida aan dooda la gelaya aan u qanciyo laakiin hadda waa la igaaday waxaan jecelahay inaan ammaan iyo mahad ballaaran u jeediyo iyaguna haddaan magacaabo markoodu hay sabreen Xuseen nin aad u qurux badan oo gadaal fadhiyo oo la yiraahdo Xuseen Shaaciye ama Xuseen Madoobe nin kale oo isna heesa oo gadaal ku jiro aan lababa dhaho saddex dhaho afar dhaho oo markuu xildhibaan arko xiirashada uga dayda waxaan jecelahay wuxuu ahaa inaan u mahad celiyo ragga iyo haweenka caawa waa kala badan yihiin markaan isu yaabo iri war maxaa haweenka yareeyey waxaan isiri malaha haddaad iyaga ku biirto amaad wuxu kordhisaa laakiin waa soo badanayaan ayaga agtooda waxaan idinla wadaagayaa idinla qaybsanayaa farxadda iyo maamuuska sare ee aad madaxdiina ku soo dhaweynaysaan ugu adeegaysaan dalkiina haddaad dad Soomaaliyeed tihiin adigoo heli kara inaad Soomaali tahay adigoo heli kara dad Soomaaliyeed inaad sheegan karto sidayda oo kale waxaan dad Soomaaliyeed ahay weligay dood kuma gelin waxaan rabaa inaad caawa mid ogaataan ruux kasta oo abaal gashada shacbiga Soomaaliyeed talyaanigu waxay dhahaan perché la storia si scrive maxaa loo qoraa taariikhda si scrive de non ripetersi si hadday xumaan ahaydna waa laga digaa hadday khayr ahaydna waa la sheegaa hadday khayr ahayd ku noqoshadeeda soo noqonaysa hadday shar ahaydna dadka waa looga digaa hadalka ma siyaasadaynayo mana rabo inaan dhinaca siyaasadda maadaama habeen farxadeed ay tahay habeen aniga xitaa waa isku naxay mar wax la ii dhiibay iyo mar waxaan islaha mar iyo cadama lagu dhihi doona laakiin waxay dhaha waan waaye waa magacyo badnahay kulligeen waxaan fursad u helnay joogitaankiisa waxaan fursad u helnay inaan la kulanno aragno dadka u dhaqdhaqaaqa u adeega naftooda iyo maalkooda geliyey moogtahay Soomaalidu ma wada burburin haddaan isdilnay oo kala yaacnay oo reer noqonnay ilaaha saas naga dhigay laakiin xaqiiqa waxaa ah ruux kasta oo naga mid ah inuu dhimanayo waatan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam
ilaahay abuurtay uu ku leeyahay maxamedow innaka mayitu wa innahum mayituun adi waa dhimanaysaa iyaguna waa dhimanaya maadaama aad dhimanayso oo aad hubto nin waaraya inuusan jirin waa tii cabdalla raaga taraaweel uu yidhi haddii ruux waaraya uu jiro yacni muxuu ahaa lagama qafaaleen maxamed keeniye yani nabi maxamed uu jeeday anigu ammaantana ka badin maayo kalgacaltooyada aad u qabtaan mid lamid a ayaanu qabaa ruuxii abaal gashadana taariikhdu waa sheegaysaa nuuraddiin faarax oo ka mid a dadka soomaaliyeed dadka isna abaalka gashaday waxoogaa mar dhaweyto anigu aan ka mid ahay dadka wax qorqora horaan sheegay waxaan dhahay gulwada ahaan jiray markaan hadlaayo in la hadlama jecli raalli ahaadaya waa mahadsantihiin dadka abaalka gashaday ka mid ah maxamed cali ameerika ammaantiisa waa la sheegay ani ma ku celcelinayo inta dhimanna iyada dadka kalea sheegi doona waxaan jecelahay dad soomaaliyeed oo mudanayaal ah oo ku jira golayaasha deegaanka ee degmooyinka aad dhow 40,000 dadka gaaraya ee soomaaliyeed magacooda ama sharafkooda ku ilaalinaysaan ugu adeegaysaan abaalka ku gashanaysaan waxaan idin leenahay hambalyo iyo ammaan ballaaran naga guddooma waxaan leeyahay haddaad ogolaataan marka caruur la sheego aabahood يعني عروتي أبوه وحسرية عروته والله دور هالكان إلا صلاحه أو لا يعني دينع سيدا حيوانات كل والله نعم أو كلا دان الصلاح يسوي وعبد عكرتيني كدعويان مركب وحن جعلها لها بريسين إن إبراس ميسان نور الدين فارح إيو أمباسادور نور الدين فارح بوجاكتيسة وحلو ترجمة أنا مجارين معلم كيا جوجا بوجاكتيسة وحلو ترجمة القضاء فربنا سومالي واحد هذا حديقة وقول الله له قصر كيا قفله أركي soomaalidu saasay dhaadaan nin adeerkay asaas dhigi jiray yani haddii hadalka hadal loo helo qosolkiyaan qof loo arkayn qosolkuba yani hiilla waa galaa waxba ha naga gadanina hana caayinina caayi haddaa rabtiin ammaantana ha naga badinina laakiin buugaagteenna idinkoo feeraha ku wato meelaha marmaraya haddii laydin arko abaalaadna gashateen waa mahadsantihiin waxaan idin leeyahay